السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، تابعي وين يا عطاء بن أبي رباح حرتي ابن عباس كوض ومسكح وناكسنا أما مدرسة ابن عباس دتك كسو أفلح كوض ووري كمده ووحى لها يا إنه يري ابن عباس ما لنا ولا فديني رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس ويان ووحي ويري عطاء بن أبي رباح ومكت سياه ويني أهل الجنة هذا كلها يري markaasuu wuxuu farti ugu fiiqay haweeney meesha mareysay wuxuu ugu yiri haweeneydan sii socota ee mudow ma aragtaa rasuulka sallallahu salaamu alayhi ayay u timid waxay ku tiri rasuulkii ilaahayow waan suuxa qalal baan qabaa oo waa mir daboolma ayay ku tiri ilaahay ii bari subhanahu wa ta'ala inuu caafimaad isiiyo oo cudurkan iga qaado rasuulka sallallahu salaamu alayhi wuxuu ku yiri haddaad rabtid haweeneyda haweeneydii ayuu la hadlay wuxuu ku yiri haddaad rabtid oo aad ku sabartid janno ayaa ku sugnaanaysa cudurkan waa ku sabraysaa adduunyada maalmo kooban baa lagu nool yahay laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu damaanad ku siinayaa in jannada maalinka qiyaamaha aad heshid insha Allah markaas waxay tiri tay ka fikirtay waxay tiri rasuulkii ilaahayow laakiin marka aan suuxo waa fiidmaayo waan qawnaada marada ay ga dhacdo marka ilaahay ii bari ayay ku tiri ilaahay subxaanahu wa ta'ala ii bari inaanan fiidmin cudurkan uu ku sabrayaa dib ma jiro laakiin waa fiidmaayo marada inay iga fiidmin ilaahay ii bari markaan suuxa ayay ku tiri marka rasuulka sallallahu salaamu alayhi ilaahay ayuu u bariyay maalinka kadibna maysan maxaa la yiraahdaa ka fiidmin marada ayaa la yiraahdaa taabiciintii iyo saxaabada xilliga noolaa ayay sheegeen gabadha muslimadda ah xishoodkeeda wax walba waa ugu muhiimsan yahay gabadha muslimadda ah cudurkeeda way ku sabri kartaa laakiin asturaaddeedii xishoodkeeda kama tanaasuli karto sida idinka muuqato gabadhan rasuulka laba mar ayay waxay ku soo celisay maxaa la yiraahdaa asturnaanteeda awradeeda ayay kala hadashay laakiin way ka tanaasushay cudurka ayada ahay iyo problemka ayada ahay sidoo kale to gabadha muslimadda kama tanaasusho xishoodkeeda maradeeda waa kaga wanaagsan yahay waa kaga adag yahay gabadha intuu marada asturto in ka badan waxa astura xishoodkeeda ayaa astura ma aqaan maalmahan dambeeto gabdhaheena waxa ku dhacay ma aqaan xishoodkii waa laga tagay waxa loo bedeshay wax la yaqaan maaha war ilaahay aan ka cabsano adduunyada maalmo kooban ayaa la joogaa aan ku dadaalno qaabkan maxaa la yiraahdaa diinteena islaamka ugu dhigi lahayn qaabkan xishoodkeena aan maro u yeelan aan ku dadaalno asmaa bint umays saxaabiyad la yiraahdo ayaa waxay kamid ahayd muhaajiriintii aaday ardul xabasha kuwoodii kuwaad iyo kuwooda labaad midkood ayay kamid ahayd markay ka soo laabatay kadib waxay meesha ku aragtay xilli laga joogo muddo kadib ayay waxay meesha ku aragtay waxay ugu warbixisay Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wasallam Fatima markaas intibaaheeda ayaa wareegay dareenkeeda wareegay markaas waxay aragtay Fatima mashquulsan oo fikiraysa Asma bint Umays waxay tiri Fatima maxaa kugu dhacay sheekan ku hayay markaas waxay ku tiri Asmaayay waxaan ka baqaa maalinkan geeriyoodo ama maalinkan dhinto in nacashka la soo saaro naxashku waxa la yiraahdaa waxa qofka markuu dhinto la saaro waxaan ka baqaa jirkeyga uu sawirmo aan ka xishoonaya ay tiri bal u fiirso Fatima bint Muhammad sallallahu salaamu alayhi waxay ka xishoonaysaa nolosheeda ma markay dhimato kadib xataa maxaa la yiraahdaa awradeeda inaan ragga aysan arkin ay ka fikiraysaa ay ka murgaysaa Asma bint Umays radiyallahu anha warda waxay u sheegtay Fatima Ethiopia waxyaabo ay ku aragtay naxash ay ku aragtay dadka markay dhintaan la saaro oo aan qofka la arkaynin sida sanduuq ahaan qofka loo gelinayo meedka way u sheegtay way u sharaxday waa la sameeyay Fatima waa loo sameeyay ayada noola loo sameeyay kadib markay aragtay Fatima bint Muhammad ay ku qanacday in ay asturan tahay ku qanacday kadib waxay tiri ilaahay oo say asturtay fa asmaa u astur ilaahu sidee asmaa asturtay iyo u asturayay tiri bal u fiirso gabdhaha muslimaadka ah xishoodkooda wax walba oo qiimo badan yahay wax walba xishoodkooda kuma doorsadaan maanta ma aqaan gabdhaheena wax ku dhacay adduunyada waa ku wada noolnahay generation kana noolnahay bal u fiirso gabdhaha waxay ku tanaasuleen gabadha wax xishoodkeeda wuxuu u yahay wax walba u yahay nabi ilaahi Musa alayhi salaam markuu labadii gabdhood nabi ilaahi Shuayb alayhi salaam u caawiyay kadib gabdhihii ay u yimaadeen mid kamid ay u timid inna abi yad'uuka ay ku tiri aabe ku yeeraya wuxuu rabaa inuu ku abaal mariyo inuu wax ku siiyo u baahan yahay caawimada anaga aan caawisay markuu u yimid Shuayb alayhi salaam uu sheegay
وحيابي كوكب سدي مصر كوكب سدي وشرحي نبي الله موسى عليه السلام كذب شعيب وحيري وكسو بدبادي ددكي دلمي ودي اما ددكي دبايي وكسو بدبادو يري waxaan u baahanahay inaan kugu nikaaxiyo labadii gabdhood midkood 8 xijaj waxa ku qasbantay agreementigan inay ila gashido 6 sano inaad joogtid halkan kadibna aniga labadii gabdhood mid kamid aan ku guuriyay kugu meheriyo nabi ilaahi muusa alayhi salaam maxay kula tahay inuu u sabray 8 sano wuxuu u sugay maxay tahay gabadha qiimaha badan intuu ku qiimeeyay markay soo socotay ilaahay subhanahu wa ta'ala sida quraanka nooga sheegay wuxuu tilmaamay fajaa'atu ihdahuma tamshi ala istihyaa waxa uu timid labada gabdhood mid kamid ah xishood uu ka muuqdo ilaahay muuqaalkeeda Muuse tilmaamay istaalkeeda Muuse tilmaamay qaab socodkeeda kale Muuse tilmaamay kaliya wuxuu tilmaamay in xishood uu ka muuqday xishoodkaas gabadha ay leedahay buu Muuse alayhi salaam wuxuu u sabray 8 sano inuu sugo ولا ليالو حشوت كيان لغا تنازل قبلهنو حشوت كيان لغا تنازل شيء او قيمها بدن اي قبل لا وحشوت كان اخر الزمان بانو جوجنا حشوت كادت قبر كنت حشوت كادت قيمه كل هذا اخواني واخواتي قبلها الودي رجليو الى حشودان يا الودي رجلين الى دركودا كدخبخان اقول قولي هذا واستغفر الله لي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته